qiimahaaga ha ku xidhin bini aadamku ka qiimeeyaan hebel muxuu ka yiri heblaaya maxay ka tiri dadkaan se iyo arkaan لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. xagee baad ka heli kartaa qiimahaaga sida aad la socotaan qof walba wuxuu dadaal ugu jiraa adduunkan oo u sacyinaya in uu bulshada uu la nool yahay dadka uu la nool yahay dhexdooda uu ka helo qiimo oo la qiimeeyo noqdo qof la qiimeeyo waana shay caadi ah oo wax caadi ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qof walba ku abuuray in uu raadiyo in la qiimeeyo uu noqdo qof bulshada iyo dadka uu la nool yahay qiimo ku dhex leh qof jecel ma leh in uu qiimo la-aan ku dhex noolaado bulshadiisa laakiin dadku waxay ku kala duwan yihiin oo ay aada ugu kala duwan yihiin qof walbaay meesha uu qiimahaas ka helayo meesha ay tahay tusaale ahaan dadka qayb baa qiimahooda waxay ka raadiyaan ama ku jaangooyaan muuqaalka ilaahay siiyey jirkiisa murqaha uu leeyahay saas wuxuu aaminsan yahay haddii uu jir qurux badan oo dhisan uu bulshada kula dhex joogo uu dadka dhexdiisa qiimo ku dhex leeyahay dadka qaybtood hantida ilaahay siiyey ayay u maleeyaan in ay bulshada dhexdooda qiimo ugu leeyihiin kaydka bangiga u yaalla guryaha uu ku nool yahay waaweynankooda intay la leegyihiin dadka qaybna dharka ay sitaan dharka uu sito quruxdiisa saacadda uu sito qiimaha ay ku fadhido qaalinimadeeda siyudka uu wato yani maarkada dharkiisu ay maaragtay marka uu soo labisto dhar noocaas oo kale ah oo uu bulshada dhex yimaado markaas wuxuu isu arkayaa qofku inuu yahay qof qiimo leh oo bulshadii qiimo ku dhex leh dadka qayb baa sidoo kale waxay u arkaan qiimahoodu inuu ku jaango-an yahay qabiilka iyo reerka uu ka dhashay saasay u arkaan qabiilka uu ka soo jeedo marka uu dadka dhex yimaado oo maaragtay in lagu ammaanayo ama uu dadka agtooda qiimo ugu leeyahay hebel oo hebelah wuxuu ka soo jeedaa reer hebel sidaa daraaddeed dadka dhexdiisa qiimo ayuu ku leeyahay mar haddii aan ogaanay in dadku ay ku kala duwan yihiin meelaha ay u celinayaan qiimahooda waxaad ogaanaysaa marka waxaa aada khalad u ah in qiimaha adigu aada leedahay aada qof kale gacanta u geliso oo uu qof kale ku qiimeeyo marka adiga marka wixii aada adigu ahayd aada qof kale gacan u gelisana arrintaasi khatarteeday leedahay bimacnaa haddii hanti aada weydo oo aada ilaahayba hantida bixiya meel cidlaa kusoo dhacdo hantidu ay ku dhaafto waxaad ictiqaadaysaa wixii aada qiimaha ku dhex lahayd bulshada dhexdooda aada qiimaha ugu lahayd inay hantidii ahayd hantidii hadday ku dhaaftayna dadku ay ku arkayaan qof qiimo beelay sidoo kale haddii aada caruur lahayd caruurtii aada weydo haddii aada maaragtay gaari qurux badan lahayd gaarigii haddaad weydo sidaasaa marka qofku uu ugu noolaanayaa qalaq iyo walbahaar haddii marba qiimihiisii uu qof kale macnaha u hibeeyey inuu adiga ku qiimeeyo oo aada ilowdo qiimahaagu inuu yahay waxa adigu aad tahay daatadaada adiga aad tahay mar haddii marka aad ka mid tahay dadyowga hadda aan sheegay qof qiimihiisa ku jaangooyey muuqaalkiisa dharka uu wato baabuurka uu wato nooca uu yahay maxaa la yiraahdaa hantida uu maaragtay
ilaahay siiyey, mansibka ruuxiisa, mansibka maaragtay uu haysto iyo wixii la mid ah, waxaad ogaanaysaa in aad wax kale ku tacalluqado, wax kale aad ku xiran tahay aan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala. naftaadii ma aaminsanid, daatadaadii adiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaa sameeyey ee qofnimadaadu ay ku xiran tahay, ee ilaahay uu yidhi ilaahay ma eego jirkiinna iyo muuqaalkiinna guud, baad macnaha aad tahay qof ilaawey baad tahay, oo wixiisii oo dhanba ka dhigay wax bannaanka ah, khaarij ah, oo aad adigu samayn karto, laakiin wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala shakhsiyan kuu abuuray qof ilaawey baad noqonaysaa. haddaa marka qolyahaas aad ka mid tahay, waxaad ogaanaysaa waxa la yidhaahdo, waxaa jira adduunka qaanuun la yidhaahdo qaanuunka wax ku xirnaansha la-aanta, qaanuun allaa tacalluq, inaadan isku xirin bini aadan, inaadan isku xirin hanti ama maaddo, aadan isku xirin, in aadan wax kale isku xirin, laakiin aad noqoto qof waxaas oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala un ku xiran, rabbigii subxaanahu wa tacaala. laguma diidana, qofka looma diidana in uu hanti samaysto, qofka looma diidana in uu jirkiisa dhiso, qofka looma diidana in uu mansib helo, qofka looma diidana in uu gaari qurux badan wato, qofka looma diidana in ilaahay maaragtay caruur fiican uu siiyo, laakiin waxaa la diidan yahay in halbeegaagu uu noqdo, qiimahaagu uu noqdo mid ku xiran waxyaabahaas. marka aad bay u fiican tahay qofku in uu arrimaha aan sheegnay oo dhan uu raadiyo, oo diinteennaaba amraysaba, ina allaha jamiilun yuxibu aljamaala, ilaahay waa qurux badan yahay, wixii qurux badan buuna jecel yahay. marka halbeegaaga marka waxaa la rabaa aad wax ku cabiraysid in aad basharka aad dhaafsiisan tahay iyo maadada ilaahay aad ku xirto keliya subxaanahu wa tacaala. maalan jirkaaga marka aad jirka dhisayso oo aad caafimaadkaa ka shaqaynayso, waa inaad ku xirtaa ina lijasadika calayka xaqa, jirkaagu wuxuu kugu leeyahay xaq, ilaahay baa kugu ammaantay oo maaragtay kuu dhiibtay, saa daraaddeed in aad ku ciyaarto ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ogola. marka aad hanti raadinayso oo aad lacag samaynayso, waa inaad hantida aad samaynaysaa aysan noqon wax dadka kale aad agtooda qiimo ugu leedahay, ee hantida tan in macnaha aad u samayso in adigana aad naftaada wax ku anfacdo, caruurtaada aad ku anfacdo, bani aadamka kalena aad wax ku tarto, aad samafale aad noqoto, oo sadaqaadka iyo zakawaadka iyo khayrka la baxa, inaad sidaa noqoto, oo dadka kalena meesha ay kugu qiimeyn lahaayeen in aad hanti keliya haysato, ay jeclaystaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala hantida uu ku siiyey oo kale ay helaan, oo kabacdina sida aad meelaha wanaagsan ugu bixinayso ay macnaha iyaguna ay ugu bixiyaan. sidaas waa sida hadafka saxda ah ee qiimaha saxda ah oo qofku uu maaragtay uu dareemayo. sidoo kale awlaadda ilaahay ku siiyey, waxaa la rabaa in aad aaminsan tahay waxa kan caruurta ilaahay ku siiyey, inaad si saxa u fakarto oo tarbiyadooda iyo hagaagooda aad macnaha waxa weye aad ka shaqayso, si berita maalinta maaragtay ilaahay aad hortagto ay kugu soo duceeyaan oo ay u noqdaan awlaad baari kuu ah, adduunkana baari kugu ah, aakhirana markii aad adduunkan ka tagto kuu soo duceeyo, sadaqaad kuu baxsho oo khayr kuu niyooda. sidaa daraaddeed casharkeennu maantay gunaanadkiisa biyo dhiciisu waxa weeye qiimahaaga adiga, qiimahaagu waa wax daakhili ah, waa wax adigu aada leedahay. qiimahaagu wuxuu macnaha ka soo jeedaa waxa weeye marka aad ilaahay ku xirto wax kastoo aad samaynayso oo aad u sacaynayso oo aad qabanayso, halkaas ayaa marka qiimahaaga runtaahi uu macnaha u ka soo jeedaa. qiimahaaga ha ku xirin in bini aadanku ay ku qiimeeyaan, in bini aadanka keliya markaas aad fiiriso, hebel muxuu iga yiri, heblaaya maxay iga tiri, dadkaan se iyo arkaan, macnaha sidaasaa waxaa la rabaa in bani aadankan daciifka ah
laga xiriirka macnaha tacalluqa aad ku tacalluqdo laga fogeeyo oo tacalluqaaga iyo ku xirnaanshahaagu uu noqdo ilaahay subxaana wa tacaala. qiimaha qofku waxa weeye laba shayba qiimo ku leeyahay iyo xirfadaha uu qofku yaqaano. xirfadaha uu qofku yaqaano, hantidu waa dhammaan kartaa, hantidu waa dhammaan kartaa, lacagtu waa dhammaan kartaa, quruxdu waa dhammaanaysaa bimuruuri zaman, wax kasta oo khaariji ah qofku uu kasbada waa dhammaanayaan. laakiin xirfadda aad taqaano, aqoonta aad leedahay waa wax adiga ilaahay kugu sameeyey oo daakhili ah, oo waxaasoo dhan hadday dhammaadaan qofku aysan ka dhammaanayn. dabeecadda wanaagsan, akhlaaqda wanaagsan ee aad basharka kula tacaamulayso oo aad maaragtay kula dhaqmayso, iyaduna waxyaabaha qiimaha aad ku leedahay ka bini aadam ahaan, ka qof ahaan. saa daraaddeed waxaan isu dardaarmaynaa, isu sheegaynaa mar kasta qiimahaaga, waxa aad ku qiimaysan tahay, waxa aad basharka agtiisa ka tahay ma ahane, waa waxa aad ilaahay agtiisa aad ka tahay. ilaahay ku xirnow, wax kastoo aad qabanaysana niyadaada ilaahay subxaana wa tacaala keliya ku xir. intaasaan galabta casharkeenna insha allah kusoo gudbinaya, kusoo gabagabeynaynaa. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر